صوصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. صوصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الأحبة في الله، ملك استوات شوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني داودا سونكا. حلقة دني وحلقة تضبات وحنا كو ايغي دونا باذن الله تبارك وتعالى انغا او برتمها اوغا جيرني احكامتا سونكا مبطلات الصيام وحيابها سونكا بريه. wax walba waxay leeyihiin wax buriya. wax kasta oo cibaado ah waxay ku guntamaan iyo shuruud waxay ku asaxaan iyo wax buriyo oo hadii lagu dhaco ama ay qofka ku yimaadaan soonkii uu burayo ama cibaadadii inteedii kale ay burayso ayay leeyihiin. salaadaha waxbaa buriya, iimaanka waxbaa buriya, soonka waxbaa buriya, xajka waxbaa buriya, wahaakada sadaqada waxbaa buriya. waxaynu ka hadlaynaa marka mubtilaatu asiyaam, maadaama barnaamijkeenu uu yahay daawada soonka, daawo wax daaweysa oo nadiifa saan u helno waa inaynu ognahay baranaana waxyaabaha daawadaasi carqaladayn kara oo burin kara. qofka sooman soonka waxaa ka burin kara qodobka koobaad al-aklu wash-shurbu camdan. qofka in uu si kas ah uu u cuno una cabo isaga oo og in uu cuno oo cabo soonkii waa ka buraya. haddii isaga oo aanan ogeyn hilmaan, isagoo oo aan is ogeyn uu wax cuno wax cabo, waa risqi saaqaha allahu ilayh, soonkiisiina waxba uma dhimayso. cabitaankuna waa la mid, laakiin hadduu isagoo og uu cuno soonkiisii waa buraya. waxaa kale oo la mid ah qofka haddii uusan xugumka shayganba uusan ku baraarugsanayn, ma oga waxyaabaha la yiri waa cuntada iyo cabitaanka inay ka mid yihiin cuntada qayb ka mid ah, ama haddii kale waa qof cusub oo aan ogeyn ama diinta islaamka ba aan u cilmi lahayn. adoo calaa kulli xaal waxaana inay camdan yihiin ama kas waa sharti. in uu qofku og yahay xugumkeedana iyadana waa sharti kale weeye. waxaa kale oo ramadaanka buriya aljimaac, waa isu tagga ragga iyo dumarka, galmada ama xiriir gogoleed oo labada qof laf iyo dhadig dhex mara ayaa jimaac la yidhaahdaa. hadday arrintaasi dhacdo soonkii wuu burayaa horta, oo in la qadeeyo ayay noqonaysaa. tan waxay sii dheer tahay marka kafaaro cudmaa baa ka waajibaysa oo siyaami shahrayni mutataabicayn, 2 bilood oo xiriir ah qofka inuu soomo ayaa ka ratimaysa. waliba min qabli an yatamaassa, intuusan xaaskiisa mar kale uusan u tegin ayay markaasi 60 cashaba laga doonayaa soonkeedii. marka towbad iyo qade iyo kafaaro ayaa qofkaasi laga doonayaa. qodobka saddexaad ee soonka buriye waxaa weeye attaqayu camdan, inuu qofku ogaan isaga mantajiyo, si kas ah inuu mantaga isaga keeno weeye. haddii laakiin soonka uu qofka soo dhaafo soonkiisii waa u jira, waxbana u dhimi mayso. haddii laakiin ama intuu afka gacanta iska geliyo iska keenay, ama cadaygiibuu maaragtay gacanta iska geliyey, ama waxyaabo daawooyin iyo wax uu og yahay inay
keenayaan mantag buu isticmaalo isku buufiyey hadduu kas isaga mantajiyo soonkiisii waa burayaa qofka isaga ah. qodobka afraad waxaa weeye xijaamaha iyo dhiig badan qofka haddii laga qaado oo faleebooyin dhiiga laga qaado, qof baa matalan dhiig u baahday, dhiig badan baa marka qofkii laga qaaday, ama haddii kale uu istoobayo markaasaa dhiig aada u fara badan laga soo saaray, taasina waxaa weeye waa afuraya walow masaladaas masalada xijaamaha ay hadal kale ay leedahay. qodobka shanaad ama arinka shanaad ee soonka buriyo waxaa weeye khuruuju damay alxaydi waannifaas. dumarka ayuu gaar u yahay arrinkan. waa in caadadii ay gabadha ku dhacdo ama ay umushaba, haalib ma aha ama ma badna, gabadhu iyadoo sagaalkeedii shinkeedii uu galay inay sooman tahay oo inay afurto ayaa u bannaan gabadha xaamilada ah ee nafteeda u baqaysa ama ilmaheeda u baqaysa. laakiin haddayba dhacdo iyadoo sooman inay umusho iyadoon kuba talagashanayn, dumarka qaar baa 7 bilood ku umula, qaar baa 8 bilood, iyadoo iskaba xoog badan oo soonka inay xamili karto isu haysata, hadday foolshii ku timaado ay sidaa ku umusho, dhiiggaasi yimid waxaa weeye nifaaska loo yaqaano, isna waxaa weeye soonkii wuu burinayaa. qodobka lixaad ee soonka buriyo waxaa weeye niyatulfitri. qofkii hadduuba iskaba go-aansado inuu afuro ayuu go-aan ku gaaray, qofka isagaa soonkiisii isna waa buraya. hadduu doono yuusan waxba cunine, cunto ayuu soo qaatay matalan, inuu soonkii jabiye ayuu ku talagalay, cuntadiibuu soo dhigtay, cuntadii markuu soo dhigtay baa laga xadayba ama laga qaatay ama laga dhacay iyo wixii lamida. tusaalayaashu waa badan yihiin. qofka isaga a marka maadaama uu qariray, ilaan soonku wuxuu ku guntamayay niyad iyo inaad niyeysato inaad ilaahay dartii u soonto, mar hadduu go-aansaday inuu afuro qofka, waxaa weeye soonkiisii isna waa burayaa. waxyaabahaas ayaa ka mid ah waxyaabaha soonka buriya. intaa qofka haddii uu ka fogaado soonkiisii waa u jiraa insha allahu tabaaraka wa tacaala. ilaahi subxaanahu wa tacaala soonkeenna mid buray kama dhigo, mid asaxay oo hirgelay allaha ka dhigo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha naga aqbalo. ayuha alaxibatu fillah, inta aynu oga kulmi doonno xalqada 8aad ee kale ee barnaamijkeena daawada soonka, waxaan idinkaga tegayaa bixifdi illaahi wa ricaayatih. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام